Somaliland hanolato. Somaliland hanolato. Somaliland hanolato. Waaya ayaga mahadnaqaya inaan nabadgelyo ugu soo noqday dalkii hooyo. Waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani muddaan ka maqnaa waddanka saxaafadda iyo shacbiga reer Somaliland waa la hadli doonaa kadib marka la tashado madaxda xisbiga waxaana aan ka hadli doonaa dhammaan arrimaha dalka ka taagan oo ugu dambeysay dhacdadii shalay ka dhacday Somaliland saxaafadda waxaan u sheegayaa inaynu kala dhergi doono shir gaar ah baanu qaban doonaa anna waan hadli doonaa nin kasta oo waxa su'aal qabto soo diyaarso waynu isu iman doonaa haddii Ilaahay ka dhigo intii aan maqnaa Somaliland waxa ka dhacay dhacdooyin yaab leh heesaa kuma wanaagsanin laakiin berigii hore hees baa jirtay la yiraahdo dhanaanaba wax yaab la igu soo dhacaya intii aan maqnaa dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin waxa ka soo qaadan doonaa in yaroo fara ku tirisa waxa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayay dhulkoodii iyagana la xidhay oo hintooda iyo baroortooda qof walba reer Somaliland gudaha iyo dibadba uu gaaray codkooda waxa ka mid ah muwaadiniin reer Somaliland oo danyara oo maxkamadda ku xukuntay 700,000 lacag ku dhow midkiiba waxa ka mid ah saxaafadda oo sidii xoolaha waxa ka mid ah saxaafaddii madaxa bannaanayd oo sida xoolaha loo haraasayo oo jeelka laga buuxinayo waxa ugu dambeeyay kuwii la dilay ee jirdilka loo geystay tafatirihii bulsho iyo Cabdi Maalig Coldoon oo burca laga soo afduubay walaalayaal Somaliland waa dalkeennii waynu wada ilaashanaynaa dooda ka socday Somaliland maalmii dhaweyto dooda waxa ka mid ahay doodii ay curiyeen Professor Samatar iyo Professor Ali Khaliif Galayd ay Somaliland la wada leeyahay haddii la waayo Somaliland ma sii jiraysa waxaanu doonaynaa Somaliland la ururiyo oo shacbigeeda la ururiyo oo wada jirkeeda la ururiyo laakiin waxaad moodaa dhacdooyinka istaba socda inay mid ka yaab badan tahay shalayto xukuumaddii Somaliland iyo labadii xisbi ee kulmiye wicid waxay soo saareen waxay ku sheegeen go'aan muhiimkaas waxaynu ku micnayn karnaayo kaliya inuu ahaa shahaadadii dhimashada ama death certificate hanaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Somaliland ilaahay ay nooga sahlo Somaliland way galaafan kartaa arintaas waxaanu u sheegaynaa talaabada ay qaadeen inaanay ahayn mid u danaynaysa hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan ma aha talaabo u danaynaysa midnimada shacbiga iyo wada jirkooda hase yeeshee waa talaabo dildilaac ku keeni karta bulshada Somaliland waxaan kaloo sheegaynaa talaabada ay qaadeen inaanay sinaba uga suurtagal ahayn Somaliland in laba xisbi ay yiraahdaan Somaliland annaga sidaa doona ka yeelayna inta gaar u tashadaan fariintan u dirayo shacbiga reer Somaliland iyo beesha caalamku waxa weeye go'aanka magacay doonaan ma u bixiyaan inaanu diidaynay oo aanan ogolayn oo aanu diidnay xisbiyahan laba waxa xisbiga wadani beesha caalamka iyo shacbiga u sheegaya sidoo horeba ugu sheegay inuu diyaar u yahay doorashooyin waqtigoodii ku qabsooma waxa kaloo aanu sheegayaa beesha caalamka iyo shacbiga reer Somaliland inaanay sinaba u suurtagelaynin in keligii xisbi uu doorasho Somaliland ka qabsado waxaan leenahay labada xisbi iyo xukuumaddana
taladii waa la ambateen annaguna waxaanu diyaar u nahay miiskii wada hadalka si aan awalba diyaar ugu ahayn talada halkeedii lagu soo celiyo haddii la doonayo doorashooyinku inay waqtigooda ku qabsoomaan walaalayaal waxa shacbiga reer Soomaaliland ugu baaqaya xukuumaddii aynu dooranay waynu aragnaa labadii xisbina waynu aragnaa inay ambadeenna waynu aragnaa aadan carabba tilmaamay dadka ambado oo wuxuu yiri nin ambaday way halku aaday way ula kaanaatay anigoo arkayaan wadada Erigo maray waxa la labada xisbi xukuumaddu wadada Erigo maray Soomaaliland waa la wada leeyahay taladeeda waa la wada leeyahay cid gaar u tashan kartaa ma jirto go'aankooda marnaba kuma xusin caqabadihii doorashada hor taagnaa iyo sida loo qaadayo waxa su'aal qura isweydiin leh waxay yiraahdeen komishanka ha joogo ilaa 29 November waxay yiraahdeen August baan soo jeedinay in la magacaabo komishankii cusbaa maxaa u diidayay in may la magacaabo maxaa u diidayay in juun la magacaabo sharciga ay ka ogolaaday kan miyuu diidan yahay haddii la doonayo doorasho talaha la isugu yimaado doorashadii diyaar baanu nahay shacbiga Soomaalilandna waxaan ku dardaarmayaa maadaama aynu aragno xukuumaddii iyo taladeedii maadaama aynu aragno labadii xisbi iyo taladoodii midnimadeenu waa muhiim wada jirkeenu waa muhiim duruufaha ayna haystee inagu gadaaman waxaynu kaga bixi karaynaa midnimo Soomaaliland haddii wada hadli kari weydo oo xisaabta wada hadli kari weydo Soomaaliya sida wada hadlaysaa bal idinku isweydiiya